Ramadaan Mubaarak. Muuqaalkan waa su'aalo iyo jawaabo. Su'aalaha idinka isoo weydiiseen ayaan ka jawaabaa. Su'aalaha tirada way ka badan yihiin, laakiin waa soo koobaa. Si isku leeyihiinna waan isku raacsiinaa. Soo dhawaada mininkiini waay. Su'aasha ugu horeyso aa idinka isoo weydiiseen waxay tahay goormee fiican jiimka in la aado waqtiga Ramadaanka, afurka kadib ama afurka ka hor. Firi. Haddii ujeedkaaga yahay inaad murqo dhisatid waqtiga Ramadaanka, jiimka waxaa fiican in la aado afurka kadib. Maxaan saas u leeyahay? Firi. Jirkaaga inuu murqo suubiyo waxaa ka horeyso jirka inuu ku jiro xaalad ah anabolic state. Marka adoo maanta dhan sooman markaa jiimka aadid, taas macnaheeda waxay tahay waxaa jiimka aaday jirkaaga oo ku jiro xaalad catabolic state ah. Jir catabolic state ku jirana murqo cusub ma suubinayo. Adiga oo maanta dhan sooman markaa jiimka aadid, trainingkaaga ma ahaanayo mid adag. Sababtoo glycogenkaaga wuu hooseeyaa. Adoo maanta dhan sooman jiimka markaa aadid, awooddaada iyo adkeysigaaga hoos ayay u dhacayaan. Sababtoo wax kale ma ahan, waad ooman tahay ama dehydration ayaa ku haayo. Firi. Markaad ooman tahay maxaa dhacayo? Plasmaha hoos u dhacaa. Taasna waxay keenaysaa muruqa inuusan helin oxygen ku filan. Muruqa markuusan helin oxygen ku filanna waxaa hoos u dhacayo awooddiisa iyo adkeysigiisa. Firi. Marka adoo sooman aad jiimka aadid oo jimicsi suubisid, waxaad jajabinaysaa muscle tissue. Sababtoo wax kale ma ahan, amino acidkii uu jirka u baahnaa wuu dhammaaday. Borotiinkii xalay cuntay jirka wuu isticmaalay. Firi. Jirkaaga markuu jimicsiga suubinaayo iyo markuu dayactirka suubinaayaba wuxuu u baahan yahay amino acid. Borotiinkii xalay cuntayna wuu dhammaaday. Marka jirka muxuu suubinaa? Amino acidku u baahan yahay wuxuu ka soo qaadanaa muruqa. Taasna wax fiican ma ahan. Taasna waxay keenaysaa jirka inuusan suubin murqo cusub. Taas macnaheeda ma ahan murqahaaga inay baaba'ayaan. Laakiin tan macnaheedu waxay tahay jirka murqo cusub ma suubinayo ama way ku adkaanaysaa murqo cusub inuu suubiyo. Marka adoo sooman aad jiimka aadid, jirka waxaa la soo darsaayo stress. Taas macnaheedu waxay tahay waxaa kor u kacayo cortisolkaaga. Jirka wuxuu galaa xaalad survival ah. Xarbi uu jirka galaa. Marka jir xarbi ku jiro, murqo cusub ma suubinayo. Isku soo duub, haddii ujeedkaaga yahay inaad muruq dhisatid waqtiga Ramadaanka, jiimka waxaa fiican in la aado afurka kadib. Su'aasha labaad oo la isoo weydiiyey waxay tahay adoo sooman jiimka ma aadi kartaa oo jimicsi ma suubin kartaa? Jawaabtu waxay tahay haa, adoo sooman jiimka waa aadi kartaa, jimicsina waa suubin kartaa. Laakiin markaas ujeedkaaga ma ahaanayo murqo cusub inaad dhisatid. Markaas ujeedkaaga wuxuu ahaanaa murqaha hadda aad leedahay inaysan kaa dhicin. Firi. Haddaad rabtid adoo sooman inaad jiimka aadid oo jimicsi suubisid, habeenkii waxaa suubisaa, waxaa cuntaa raashin kugu filan. Raashinkaasna waa inuu noqdaa mid aad ka helaysid nafaqooyinka uu jirkaaga u baahan yahay. Waxaa kaloo muhiim ah habeenkii inaad cabtid biyo kugu filan. Khaasatan markaad suxuuranayso, hadday suurtagal tahay waxaa isticmaashaa electrolytes. Haddii aadan awoodinna biyaha cabaysid ama cabitaanka aad cabaysid xoogaa yaroo cusbo waa ku darsan kartaa. Haddii ay noqoto adoo sooman maalintii jiimka inaad aadid oo jimicsi suubisid, waxaa suubisaa culayskii Ramadaanka ka hor aad ku jimicsan jirtay waxaa ka dhintaa 40%. Meeshii awal culays badan aad ku jimicsan jirtay, hadda waxaa suubisaa, waxaad badisaa inta jeer aad suubinaysid. Reebiska kor u qaad. Ogow, ujeedka waxa uu yahay murqaha hadda aad leedahay inaysan kaa dhicin. Haddii adoo sooman aad dhahdo waxaan ku jimicsanaa miisaan culus, taas waxay keenaysaa jirka inaad qasabtid. Jirka marka aad qasabtidna asiga oo sooman maxaa imaanayo? Si sahlan ayaa u dhaawacmaysaa. Ogow, marka aadan cabin biyo kugu filan way sahlan tahay inaad dhaawacmato. Sababta maxay tahay? Firi. Markuu dehydration ku haayo ama oon ku haayo maxaa imaanayo? Waxaa hoos u dhacayo plasmahaaga. Taas maxay keenaysaa muruqa inuusan helin oxygen ku filan.
waxaa kaloo imbalance noqonayo electrolyteska jirkaaga ku jiro. Marka mar haddii electrolyteski imbalance ay noqdeen, muruqiina uusan helin oxygen ku filan, maxaa imaanayo? Muruq laciif uu noqonaa. Muruq markuu laciif noqdana maxaa imaanayo? Si sahlan ayaa ku dhaawacmaysa. Haddii aad tahay qof buuran isla markaasna rabo miisaan ama baruur inuu iska dhimo, haddaa qofkaas tahay, afurka ka hor jiimka waa aadi kartaa. weli waqtiga ramadaanka si sahlan ayay baruurta kaaga dhacaysaa hadduu raashinka kuu saxan yahay iyo trainingkaba. fil adoo sooman markaa jiimka aadid, jirkaaga si sahlan ayuu enerjigu u baahan yahay uga soo qaadanaa baruurta, sababta wax kale ma ahan glycogen storage-kaaga ayaa faaruq ah. laakiin taas dhan waxaa ka horeyso raashinka inuu kuu saxan yahay. hadduusan raashinka kuu saxneen, waxba ma isbedelayaan, ama afurka ka hor aad ama afurka kadib aad. su-aasha kale oo laysoo weydiiyey waxay tahay, anigoo cunaayo maintenance kilocalories murqo cusub ma suubsan karaa? qofkan wuxuu leeyahay, anoo cunaayo bes raashinka oo jirkeyga u baahan yahay, murqo cusub ma suubin karaa? jawaabtu waxay tahay ha. firi adigoo maintenance kilocalories bes cunaayo, murqo cusub jirka wuu suubinaa. waa haddii aad tahay qof jiimka ku cusub, jirkaaga markuu fresh yahay. adigoo cunaayo maintenance kilocalories isla markaasna jirkaaga murqo cusub ayuu suubinaa, sababtoo waa fresh. haddaad tahay qof buuran, adigoo cunaayo maintenance kilocalories, jirkaaga murqo cusub wuu suubinaa, baruurtana way kaa baaba'aysaa. waa hadduu trainingka kuu saxan yahay. processkan waqti uu qaadanaa, laakiin ugu dambeystii goolkaaga waad gaaraysaa. laakiin haddaad tahay qof muddo dheer jiimka aadayay, haddii aad cuntid maintenance kilocalorie, markaas way kugu adkaanaysaa, ama jirka way ku adkaanaysaa murqo cusub inuu suubiyo. haddii aad tahay qof lean ah, tusaale ahaan fat percentage-kaaga uu yahay 10%, haddii aad cuntid bes maintenance kilocalories, markaas jirka way ku adkaanaysaa murqo cusub inuu suubiyo. haddaad rabtid inaad miisaan isku dartid oo murqo cusub oo jirka suubiyo, kilocalorieskaaga wax yar kor u qaad. mararka qaar 300 oo kilocalories bes haddaa kor u qaadid, jirka isbedel u suubinaa. dabcan waqti ay qaadanaysaa jirka isbedel inuu suubiyo, maadaama waxa surplus aad tahay ay aada u yar yihiin. laakiin iyadoo baruurta jirkaaga wax badan ay isbedelin, jirka haddana murqo cusub ayuu suubinaa. qofkan kale wuxuu isoo weydiiyey, anigoo ah 86 kiilo, sidee six pack ku yeelan karaa? fir six pack inaad yeelatid kuma xirno inta kiilo aad tahay, waxay ku xiran tahay jirkaaga meeqaa dufan ah. haddii aad tahay 86 kiilo isla markaasna six pack-gaaga uusan muuqan, taas macnaheedu waxay tahay dufanka jirkaaga ku jiro wuu badan yahay. marka maxaa lagaa rabaa? waxaa lagaa rabaa dufanka jirkaaga ku jiro inaad yareysid. markaad gaarsiisid 15% wixii ka hooseeyo, markaas kadib six pack-gaaga ama murqahaaga caloosha way muuqanayaan. qofkan kale wuxuu isoo weydiiyey, sidee ramadaanka miisaan la iskugu dari karaa? su-aashan waa su-aasha ugu badan ee la isoo weydiiyey. firi miisaan inuu kugu darsamo waxay ku xiran tahay raashinka. waa inaad cuntaa raashin badan, waa inaad noqotaa caloric surplus, waa inaad cuntaa raashinku jirkaaga u baahan yahay xoogaa wax ka badan, markaas kadib ayuu miisaan kugu darsamaa. dabcantan qofkay ku xiran tahay. tusaale ahaan, haddaad tahay qof genetics ahaan ah ectomorph, isla markaasna metabolism-kaaga uu yahay high, markaas oo kale nasiib daro raashin aada u badan ayaad u baahanaysaa. marka ramadaan ha ahaato ama yaysan ahaanin, haddaad rabtid miisaanna isku dartid, waa inaad noqotaa caloric surplus, waa inaad cuntaa raashinku jirkaaga u baahan yahay xoogaa wax ka badan. dadka isku mid ma aha, geneticskooda wuu kala duwan yahay. dadka qaar inay miisaan isku daraan waxay u baahan yihiin kilocalories aada u badan, dadka qaarna 3,000 oo kilocalories way ku filan tahay. marka waxay ku xiran tahay qofka aad tahay iyo jirkaaga nooca uu yahay. qofkan kale wuxuu isoo weydiiyey, haddii ramadaanka oo dhan aan jimicsi suubin, murqihii ramadaanka ka hor aan dhistay ma iga dhacayaan? firi haddii ramadaanka oo dhan aadan jimicsi suubin, murqo way kaa dhacayaan, laakiin murqihii ramadaanka ka hor aad dhisatay oo dhan ma kaa dhacayaan. ramadaanka
marka jimicsiga joojisid maxaa dhacayo? Waxaa hoos u dhacayo protein synthesis-ka. waxaa kaloo istaagayo calaamadii ahayd jirka inuu murqo u baahan yahay marka jimicsiga joojisid. maxaa imaanayo? waxaa hoos u dhacayo awooddaada. weega labaad, weega saddexaad murqahaaga way sii yaraanayaan. marka ramadaanka oo dhan haddii aadan jimicsi suubin xoogaa murqo ah way kaa dhacayaan. laakiin nasiib wanaaga wuxuu yahay ramadaanka kadib jiimka markaa kusoo laabatid murqihii kaa dhacay si dhaqso ah ayay kusoo laabanayaan. marka taladeeda waxay tahay haddii aadan rabin murqihii ramadaanka ka hor aad dhisatay inaysan kaa dhicin, xoogaa jimicsi ah suubi. xataa 2 maalin weygii jiimka haddaa aadid way kugu filan tahay. taas day suurtagal ku aheenna guriga waxaa ku suubisaa body weight exercise. wax la-aan ayay ka fiican yihiin. asxaabta, waa ogahay muuqaalka aad u dheeraaday. su-aalaha iyo jawaabahooda meeshaan ayaan kusoo gabagabeynaa. muuqaalada noocan oo kale ah haddii aad rabtiin weeg walbe muuqaal saan oo kale ah waa suubin karaa. waxaa suubisaa su-aashaa qabtid fiidiyowgan commentigiisa igu soo qor. balan waaye su-aashaada weega dambe waan ka jawaabaa. midada kale, adiga muuqaalkan fiirsanayo haddaa rabtid coach, anaa coach kuu noqonayo, anaa diyaar ku ah. wax walba anaa soo diyaarinayo. adiga waxaa lagaa rabaa wixii aniga aan soo diyaariyey inaad suubisid, islamarkaasna warbixin isoo siisid. marka haddii daacad kaa tahay islamarkaasna aad rabtid isbeddel dhab ah inaad suubisid, waxaa igala soo xiriirtaa emailkan ama waxaa si toos ah igala soo xiriiri kartaa websitekeena xataa whatsapp uu leeyahay. whatsappkaas waa iga soo wici kartaa. balan waayo gacno furan ayaan kugu soo dhaweynaa. aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada muuqaalkan aad daawateen. ay loobina videogan like ina saartaan, commenti kasoo bixisiin, asxaabtiin u share garaysaan. haddaa subscribe dhihina fadlan subscribe dheh. subscribe-ka free waay. mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad waa mahadsantihiin. waxaa noo ballanay videogan videoga ku xigo. ballanteenu waa caafimaad iyo muro.